وهكذا برنامجكينا اللبات برنامجكينا اللبات وحي أقرأ سيدة create a program that asks the user to input their first name. The program then outputs the user's first name. برنامجكن waxaynu u baahannahay inaynu kala qaadno qaabkay u kala qaadaynaa saddex qayb ayaan u kala qaadaynaa koow waxaan sheegaynaa inputska kabacdi outputs kabacdi process saddexdaas aan kala qaadaynaa marka hore inputskan aan kala bixinaa meesha meeqa input ayuu haystaa barnaamijkan hal input ayuu haystaa halkaas input waa maxay first name meeqa process ayuu haystaa process barnaamijkan kuma jiro meeqa output ayuu haystaa hal output ayuu haystaa waa maxay magaca inaad shaashada la soo saaro maadaama saas ay tahay barnaamijkan waxaan sameynaynaa variableka waxaan ugu wacaynaa first name kabacdi waxaynu weydiinaynaa isticmaalaha barnaamijka magaciisa waxaynu ku kaydsanaynaa variableki aanu magacaabnay ee ahaa first name kabacdi waxaynu shaashada soo saaraynaa variablekii waa kan halkan waad aragtaa magac kasta uu isticmaalaha uu geliyo shaashadaan soo saarayna magacuu raba haddo magacuu doona ha geliyo sababtoo ah mar kasta aanu soo saarayna shaashada waxaan isticmaalaynaa print function marka aanu weydiinayno su'aal isticmaalaha waxaan isticmaalaynaa input function marka aanu shaashada wax soo saaraynana print function marka print maxaa la print garaynayaa wax kasta oo ku kaydsan variableka first name screenka la soo saaraya haddaba aynu barnaamij u bedelno anagoo isticmaalayna Python programming language waa kana challenge 2 waan qoray marka hore magaca date-ka iyo challenge numberka challenge 2 labo waxaynu samaysanay variableka naming conventionka ay isticmaalnay waxaa la yiraahdaa camel case variable ayaan samaysanay isticmaalaha ayaan weydiinay su'aasha aan weydiinay waxaynu ku kaydinaynaa variableka first name dabadeedna waxaynu shaashada soo saaraynaa wax kasta uu geliyay qofka isticmaalaha ahaa magac kasta uu geliyay haddii barnaamijka intaan run gareeyo aan magacayga geliyo magacayga ayaa shaashada kusoo qormaya waana arki doonaa leen kasta waxaynu niri mar kasta oo barnaamij qorno waxaynu u baahannahay comment inaan ku sameyno halkan leenkan muxuu sameynayaa af Soomaali af Ingiriisi labadaba waa ku qoray ask the user their first name and store it in a variable called first name weydii isticmaalaha magaciisa koowaad oo ku kaydka ku magacaaban first name display the name entered by the user shaashada soo saar magaca uu geliyay isticmaalaha barnaamijka barnaamijkeena labaad saas ayuu ku dhameystiran yahay maxaynu sameynaynaa run ayaynu taabanaynaa run module ayaan taabanay haddii kale F5 ayaan taabanaynaa waan taabanay waa kan barnaamijkii markaan run garaynay waxaan ku qorayaa magacayga wuxuu ii soo saari doonaa magacayga mar labaad ayaan run garaynayaa waxaan ku qorayaa Ali enter ayaan dhahayaa Ali ii soo saaray magac kastoo aan geliyo magacaas ayuu shaashada igu soo qorayaa marka barnaamijkan magaca ayaan weydiiyey isticmaalaha magaca aan weydiiyey wax kasta uu geliyay waxaan ku kaydsanay variableka first name mar kasta oo aan doonayno inaan barnaamij aan weydiino isticmaalaha barnaamijka su'aal waxaynu isticmaalaynaa input function mar kasta oo aan doonayno inuu shaashada wax ku soo qorno waxaynu isticmaalaynaa print function barnaamijkeena labaad saas ayuu noogu og yahay waxaynu u gelaynaa barnaamijkeena saddexaad sidaan ayuu qoran yahay create a program that asks the user to input their surname then their first name the program outputs the user's first name then their surname separately mar kasta
oo aan xalinayno dhibaato waa inaynu fahamno marka sida aan ku fahmi karno waa inaanu kala qaadno saddex qayb ayaan u kala qaadaynaa inputs process output waa maxay inputka the program asks the user to enter their surname inputka koowaad waa kaasa inputka labaad then the user inputs their first name markuu wuxuu gelinayaa the surname kabacdi wuxuu gelinayaa first name magaca koowaad soo saaraya haddana magaca labaad soo saaraya shaashada marka uu weydiinayna magaca labaad uu weydiinaya marka hore kabacdi magaca koowaad ayuu weydiinaya waxaynu niri markasta oo aanu weydiino isticmaalaha barnaamijka su'aal waxaynu u baahanaa meel in ku kaydsano meeshaas aan ku kaydsanayno waa memoryga waa inaanu magac u bixino magaca aan u bixinayno maadaama aan weydiinayno magaca labaad waxaynu leenahay surname waxaan ugu yeeraa halkan surname waxaan weydiiyey isticmaalaha barnaamijka magaciisa inuu geliyo markuu magaciisa geliyo waxaan ku kaydsaday surname variable-ka aan ugu magac daray surname kabacdi waxaan weydiiyey isticmaalaha barnaamijka magaciisa koowaad kabacdi waxaan ku kaydsaday magaca koowaad ee first name kabacdi shaashada ayaan soo saaray magaca koowaad kabacdina magaca labaad waxaynu u bedelaynaa python tan waa pseudocode waxaynu u bedelaynaa python waa kan challenge-gii saddexaad waa kan aad ay u fududahay inaan u bedelno mar haddaan boqorno algorithm-ka aad ay u fududahay inaan u bedelno code marka hore waxaynu weydiinay surname-ka waxaan sameeyey variable aan u maadaray name surname kabacdi waxaan weydiiyey userka inuu geliyo magaca labaad kabacdi waxaan ku save garaystay halkan so leenka koowaad commentigan ku sameeyey weydii isticmaalaha magaciisa koowaad oo ku kaydi kaydka ku magacaaban surname weydii isticmaalaha magaciisa labaad magaciisa koowaad oo ku kaydi kaydka ku magacaaban first name shaashada soo saar magaca koowaad ee uu geliyey isticmaalaha shaashada soo saar magaca labaad ee uu geliyey isticmaalaha barnaamijkeennii saddexaad saan ayuu noogu egyahay barnaamijkan maadaama aan qornay waa inaynu tijaabino inuu shaqaynayo iyo in kale run ayaan taabanayaa run module ayaan leeyahay haddii kale F5 ayaan taabanaya magaca ayaan gelinayaa muxuu i weydiiyey surname-ka Farah muxuu i weydiiyey first name-ka Shariif maxaad is leedahay kee buu soo hormarinayaa haddii aad xasuusto su-aasha waxay ahayd marka hore inuu ku weydiiyo magaca labaad kabacdina uu ku weydiiyey magaca koowaad laakiin markii shaashada uu soo saarayo magaca koowaad ayuu marka hore soo saaraya kadibna magaca labaad ayuu soo saaraya shaashada haddaba inta haddaan dhaho saas waxaan ka rabaa inuu soo saaro Shariif Faarax waa kaasaa sax ayuu usoo saaray Shariif Faarax barnaamijkeeni saddexaad ayaa intaasna noogu eg waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena afraad sidan ayuu u qoran yahay create a program that asks the user to input their first name then their surname the program then outputs the user's first name then their surname on the same line so barnaamijkan waa barnaamijkii hore aan sameynay oo wax yar ka bedelan barnaamijkii hore barnaamijkii saddexaad ee aynu sameynay challenge-ga saddexaad waxaynu weydiinaynay surname kabacdi first name kabacdi waxaynu soo qoraynay laba leen ayaanu kusoo qoraynay barnaamijkan wuxuuna weydiinayaa inaanan kusoo qorno hal leen macnaha meesha magaca koowaadna soo qoraynay magaca labaadna soo qoraynay waa inaan soo qorno magaca koowaad magaca labaad hal leen marka sidaa daraaddeed barnaamijka hore aan qornay waxaan ku sameynaynaa modification waa kan modification aan ku sameynaynaa wax weynna hadda ka bedeli mayno oo waxa una weydiiyey keliya maadaama labadan laba leen ay tahay inaynu hal leen ka dhigno intaas una weydiiyey waxaan iska commentigaan tiraynaa marka hore
print statement ka tagana waxaanu isticmaalaynaa class hal print statement ayaan isticmaalnay kabacdi variable ka koobaad oo first name ahead kabacdi variable ka labaad oo surname ka ahead laakiin waxaan u dhaxaysiinaa plus kan macnaheedu waxa waaye isku xir labadan wax kasto ku save gareysan labadan variable ayuu isku xiraysaa waxa la yiraahdaa concatenation labadan variable waxa ku kaydsan ay isku keenaysaa display the first name and the surname entered by the user soo saar shaashada magaca koobaad iyo magaca labaad waan run gareynaynaa run module haddii kale F5 waxaynu gelinaynaa magaca koobaad waxaynu gelinaynaa magaca labaad waa inuu hal leen isku soo saaro uu soo saaro hal leen laakiin magaca koobaad iyo magaca labaad uu isku daray uu isku dhajiyay macnaha maxaa xal ah xalka waa inaan space u baneeno si ay u fududaato oo qof kasta uu ogaado inuusan hal magac ahayn ee laba magac ay tahay waxaanu sameynaynaa plus kale kabacdi laba quotation labada quotation aan dhexdooda space gelinaynaa markaa run baan leenahay run module waxaanu gelinaynaa Sharif Farah waa kana space u dhaxaysiiyay barnaamijkeennii afraad saas ayuu noogu egyahay waxyaabaha aan u baahannahay inaan xasuusano mar kasta oo aan isticmaalaha weydiinayno waa inaynu isticmaalno input function waa inaynu samaysano meel aan ku kaydsano meeshaas waxaa la yiraahdaa variable mar kasta oo aan doonayno shaashada inaan wax soo saarno waxaynu isticmaalaynaa print function mar kasta oo aan variable samaynayno waxaynu isticmaalaynaa laba naming convention mid waa camel case midda kalena waa snake case sidoo kale variable marka aan samaynayno magaca variable-ka marka aan samaynayno waa inuu ka turjunto waxa aan ku kaydsanayno variable-kaas muhiimadda taas ay leedahay waxaan ogaanaynaa marka dadka kale ay akhrinayaan barnaamijkeena